filimku wuxuu ku bilaabanayaa wiil lagu magacaabo Bon oo inta badan ay hooyadii ku qayliso. habeenada ka mid ah iyadoo ku qaylinaysa ayuu murugoonayaa, isla mar ahaantaana uu guriga ka cararayaa. wuxuuna fariisanayaa meel bannaan oo cidla ah, meeshaas oo aan ka fogeyn guriga. wax yar ka bacdi waxaa agtiisa soo istaagaya baabuur, nin ayaana ka soo degaya. markuu soo dhawaado wuxuu wiilka yar u sheegayaa inuu wax siinayo. si kastaba ahaatee, markuu gaadhiga wiilka yar soo dul istaagay, wuxuu sameynaya inuu gaadhiga ku tuuro, saasna uu ku afduubto wiilkii yaraa. ninkan wuxuu ka mid ahaa dambiilayaasha magaalada, calashaan tuugada magaalada. wuxuuna inta badan wadooyinka ka qafaashaa carruurta yarar. wiilkii yaraa ayuu geenayaa xarunta ay dadka ku ciqaabaan. abaar kadib, Bon ayaa toosaya isagoo ay wejigiisa ka muuqato in la garaacay. isla mar ahaantaana wuxuu arkayaa dhowr carruur oo sidiisoo kale la soo xaday oo ay garaacayaan tuugtani. wiil lagu magacaabana ay madaxa waxa uga dhufanayaan shay adag, isla mar ahaantaana intuu gariiro ayuu dhacayaa. si lamida wiil kaloo lagu magacaabo Ka oo agtooda taagnaa ay waxay sameynayaan inay dhagaha ka qarxiyaan. markuu arkay afduubayaashu waxay ku sameynayaan labadiisii saaxiib, wiil lagu magacaabo Chi ayaa ku eegaya indha fiiqan, taasoo ka cadhaysiisay afduubayaashii kale. mid ka mid ah afduubayaasha ayaa wiilkii yaraa labadii indhood ka soo ridaya. Bon oo qol gooni ku xiran ayaa arkaya naxariis daradooda, isla mar ahaantaana daaqada ka qaylinaya si uu helo cid caawisa. si kastaba ahaatee, qaylada Bon ayaa soo jeedatay dareenka afduubayaasha. mid ka mid ah afduubayaasha ayaana u imaanaya Bon, isla mar ahaantaana ugu hanjabaya inuu carabka ka jari doono hadduusan qayladan deyn. sababta kaliya carruurtan usoo afduubteenna waa inay uga faa'iidaystaan daran gaara. Bon iyo asxaabtiisii ayaa lagu qasbay inay dawarsadaan, maadaama ay naafa yihiin. waxay uga faa'iidaysanayaan inay lacag usoo sameeyaan. halka ujeed ay carruurta yare usoo afduubteenna waa inay helaan lacag badan, calashaan markay curyaan ka wada dhigaan ama naafo ka wada dhigaan ay ku dawarsanayaan. Bon iyo asxaabtiisa ayaa sameynaya lacag badan iyagoo dadka tuugsanaya. markay joogaan waddada dhinaceeda waxaa u imaanaya oday si uu wax u weydiiyo. si kastaba ahaatee, Chi wuxuu sheegayaa in dhammaantood isha ay ku hayaan koox afduubayaala. inkastoo Chi uusan arkin afduubayaasha waddada hareeraheeda joogta, maadaama uu indhala yahay, ma rabo inuu halis geliyo naftiisa iyo asxaabtiisaba. markay dib ugu soo noqdeen goobtii afduubayaashu ay ku haysteen, Chi waxaa la weydiinayaa sheekadii galabta dhex martay isaga iyo odayga. Chi ayaa markaa odhanaya waxba kuma odhan odayga. si kastaba ahaatee, ma rumaysanayaan hadalkiisa. dabadeedna waxay sameynayaan inay garaacaan, sidoo kalena ay isku dayaan inay carabka ka jaraan. inkastoo uusan waxba maqli karin, Ka wuxuu u degdegayaa inuu caawiyo saaxiibkii Chi, isagoo nabar ku dhufanaya mid ka mid ah afduubayaasha. markay doonayaan inay carabka ka jaraan Chi, si lama filaana waxaa soo muuqanaya odaygii oo ay la socoto inantiisii yarayd, taasoo lagu magacaabo Kaariya. odayga ayaa markaa soo baxay inuu yahay macalinka kangafuuga, wuxuuna goobtan u yimid si uu u fashiliyo, isla mar ahaantaana uu u garaaco. odayga ayaa markaa ka codsanaya afduubayaasha inay sii daayaan Chi iyo asxaabtiisaba. si kastaba ahaatee, hogaamiyaha kooxda oo lagu magacaabo Simo ayaa iska indhatiray digniinta odayga. dabadeedna wuxuu amrayaa raggiisii inay dilaan. odayga keligii ayaa si sahal uga adkaanaya dhammaantood. sidaa darteed waxay doorteen inay cararaan intay dhiman lahaayeen. si kastaba ahaatee, odayga ayaa go'aansanaya inuu kaxeeyo dhammaantood oo uu geeyo gurigiisa, si lamidana uu baro xirfadda dagaalka. sanada kadib, Kaariya waxay noqotay gabadh aad u qurux badan, sidoo kalena waxay jeceshahay inay heesto. waxayna la soo baxday xirfad gaara oo ay awood u leedahay inay kor u boodo. marka ay tartanka ku jirto, mid ka mid ah garsoorayaasha ayaa weydiinaya inay laambadda sare soo taabato, calaashaan saqafka sare inay soo taabato, taasoo ay adag tahay in la gaaro xitaa qofku hadduu isticmaalayo jaranjaro. si lama filaana, Kaariya ayay u suurta gashay inay taabato nalka iyadoo isticmaalaysa xirfadeedii bootinta. si kastaba ahaatee, garsoorayaasha ayaa ugu dambeyntii isku raacay in aysan gudbin, sababtoo ah waxay jebisay laambaddii. meel kale, Bon oo hadda noqday kabalyeeri ayaa ka shaqeeya hotel, waxaana la arkay isagoo sii gelay qol, halkaas uu ku dilay mid ka mid ah dadkii qolka kireystay. cid kalena maaha, waa mid ka mid ah madaxa ururka ka ganacsiga carruurta. maadaama uu hadda xirfad dagaal yaqaano, Bon si fudud ayuu u dili karaa ninka. dhan kale, Chi ayaa la arkayay isagoo doonaya Simo.
kaasoo ahaa madaxii kooxdii soo afduubatay marka ay yararaayeen. inkasta uu indhala yahay Ji wuxuu tababarayay dareenkiisa sanado badan si uu ogaado halka ay ku sugan yihiin dadka ku xeeran, isagoo dareemaya oo dhageysanaya dhaqdhaqaaqooda. markaas wuxuu weydiinayaa koox budhacda wax ku saabsan Simo, laakiin taa beddelkeeda way xanaaqeen. Ji wuxuu awoodaa inuu isdifaaco. mid ka mid ah tuugada oo soo weeraray ayuu feer ku qarxinayaa. markii tuugtii kale damceen inay toogtaan, Ji si lama filaan waxa uu soo gaarayaa Ka, isla mar ahaantaana uu adeegsanaya awoodiisa. Ji iyo Ka ayaa ugu dambeyntii u suurta gashay inay jebiyaan kooxdii, inkastoo aysan wax warar ka helin meesha uu Simo ku sugan yahay. Ka ayaa dabadeed u soo jeedinaya Ji inuu iska daayo argoosigan, maadaama uusan labada dhinacba cidna faa'iido u keenayn. si kastaba ahaatee, Ji ayaa weli ku adkaysanaya inuu ka arguto Simo iyo kooxdiisii, kuwaasoo u sababay inuu indhala'aan noqdo. Na ayaa noqday doqon kadib markii afduubayaashu ay madaxa ku dhufteen waagii ay soo afduubteen. isla mar ahaantaana iminka wax ma samayn karo, wuxuuna waqtigiisa ku qaataa caawinta macallinka, isagoo u soo qabtaa shaqooyinka fudud oo dhan. maalin maalmaha ka mid ah, nin odaya oo la oran jiray Mo ayaa u imaanaya macallinka, isla mar ahaantaana u sheegaya koox tuuga ah kuwaasoo dilal geystay. wuxuuna u malaynayaa in kooxdaasi ay ka tirsan yihiin kooxihii uu macallinku tababari jiray, oo ay ka mid yihiin Bon iyo saaxiibadiis. si kastaba ahaatee, macallinka ayaa u xaqiijinaya in kooxdaasi aysan ku jirin kooxdiisa. odaygii ayaa isla mar ahaantaana iska baxay. Na ayaa markuu odaygii baxay macallinka weydiisanaya inuu baro fanka dagaalka. si kastaba ahaatee, uma jawaabayo macallinku maadaama uu nin maskaxda dhaqaaqday uu yahay. meel kale waxaa wada jooga Ka iyo Bon. Ka ayaana weydiinaya dareenkiisa ku saabsan Kaariya, wuxuuna u malaynayaa in Kaariya ay jeceshahay Bon. Bon ayaana markaa oranaya afaarahayga ka baxniyow. Ka ayaa markaa u sheegaya inuusan ka aamusi doonin haddii qof uu Kaariya wax yeelo. maalmaha ka mid ah, Ka iyo Kaariya ayaa ku kulmaya meel cafeteria. isla mar ahaantaana Kaariya ayaa u muujisay in Bon uu jecel yahay gabar kale oo lagu magacaabo Bibi, maadaama iyadu ay jeceshahay way ka murugaysan tahay arrinta. taasina waa sababta uu Ka uga digayay Bon inuu ku ciyaaro dareenka dumarka, gaar ahaan Kaariya. meel kale, macallinku waxaa soo weeraray kooxdii oo odaygu sheegayay. markuu arkay in la garaacayo macallinkii, Na wuxuu soo ordayaa inuu caawiyo intii karaankiisa, maadaama uu xirfadu isku difaaca lahayn. waa la dhaawacayaa ilaa uu ku dhowaaday inuu dhinto. isla markaaba asxaabtii ayaa soo aadaya dhinacii odayga. si kastaba ahaatee, markii guriga soo galeen waxay arkayaan Na oo dhaawaca. inkastoo uu macallinku ka guulaystay kooxdii burcadda ahayd, wuxuu ekaa inuu badbaadin karo Na. markaas ayuu tiimka ku amrayaa inay Na geeyaan god dhulka hoostiisa ku yaala. macallinka ayaana markaa u muuqda inuu badbaadin karo Na, wuxuuna sheegay inay jirto hal sabab oo lagu badbaadin karo, taasoo iyaduna dhibaatadeeda wadata. lana wadaagay tiimka in haddii uu badbaadiyo Na aysan xasuustiisu dib u soo noqonaynin. markay taas maqleen, Kaariya iyo kuwii kale waxay u muuqdaan inay wareersan yihiin, laakiin ugu dambeyntii waxay ku heshiiyeen inay badbaadiyaan Na, inkastoo uusan dib u xasuusan doonin. inta macallinku ku guda jiro badbaadinta Na, tiimka ayaa kor ka ilaalinaya godka. cabaar kadib, marka uu Ji keligiis waardiye yahay, waxaa soo muuqanaya nin maski xiran oo godka si dhuumasho u sii gelaya. ninkan wejigu u qarsoon yahay wuxuu ogyahay inuu isticmaalayo farsamo gaara, sidaa darteed Ji ma dareemayo dhaqdhaqaaqiisa alashaan markuu godka gelayo. isla markaaba, Ka iyo Kaariya ayaa ugu dambeyntii meesha ku soo noqday markay maqleen qaylada macallinka oo godka hoostiisa ka baxaysa. Ji iyo kuwii kale waxay u yaaceen dhinaca godka, halkaas ay ogaadeen in ninkii wejiga duubnaa uu dilayo macallinkoodii. kadibna godka ay gelayaan si ay ula dagaalamaan ninkan wejiga duuban. markuu dhex maray dagaal adag, ninkii wejiga duubnaa waxaa u suurta gashay inuu baxsado. wax yar kadib, Ka iyo intii kale waxay macallinkoodii ku aasayaan buurta korkeeda, waxayna u muuqdaan inay dhammaantood murugoonayaan maadaama ay waayeen macallinkoodii nolosha. Bon iyo Ka ayaa muran xoog badan dhex maraya, midba midka kale wuxuu ku eedaynayaa wixii dhacay. wax yar kadib, Bon waxaa soo wacaysa saaxiibtii Bibi oo ka codsatay inuu guriga ugu yimaado. dabadeed codsigeedii ayuu u hoggaansamayaa, wuxuuna ka tegayaa saaxiibadii. imaanshaha guriga Bibi, Bon wuxuu la yaabay markuu arkay in Bibi hooyadeed ay tahay hooyadii, oo uusan mar dambe la kulmin sidii loo soo afduubtay yaraantii. si kastaba ahaatee, hooyadii uma ekaa inay aqoonsan tahay isaga. Bon ayaana doortay inuu iska qariyo iyada oo uusan u sheegin waqtigan la joogo. meel kale, Ji iyo Ka ayaa la arkayaa iyagoo booqanaya oday. wax kalena ma raadinayaan, waxay raadinayaan daawadii Na maadaama uu tabcaan yahay. Ji iyo Ka ayaa ugu dambeyntii ka niyad jabay raadinta daawada Na. maalintii xigtay, Bon ayaa helaya xog ku saabsan Simo iyo kooxdiisii. kadibna wuxuu sheegayaa Ji iyo Ka
waxayna si wada jir u aadayaan goobtii ay ku dhuumaalaysanayeen Sima iyo kooxdiisii si ay uga soo argutaan. Sima iyo kooxdiisa ayaa weli afduubtaa carruuraha iyagoo isticmaalaya xirfadoodii dagaal. Bon iyo kuwii kale waxay ku guuleysteen inay ka adkaadaan nimankii Simo. carruurtii la qafaashayna way sii daynayaan. Ji ayaa markaa ka codsanaya Ka inuu dilo mid ka mid ah dabadhilifyadii Simo kaasoo markuu yaraa dhagta qarxin jiray waayo ma rabo inuu ka arguto Simo iyo kooxdiisa. Ji ayaa u muuqda mid niyad jabsan markuu maqlo ereyada Ka isla mar ahaantaana uu bilaabaya inuu dilo ninkii. dhan kale meel kale Kaariya oo keligeeda ayaa waxaa lagu soo weeraray guriga. sidoo kale guriga waxaa yaala Na oo meyd ahaan u yaala. nimankan waxay rabaan in labadoodaba ay beerka kala baxaan. markay rabaan inay kala baxaan waxa goobta imaanaya Ji, Ka iyo Bon ruux magac xuma. waxay maareeyeen dhammaantood inay ka adkaadaan kooxdii wajiyada duubnaa. si kastaba ahaatee nin la yiraahdo Pascal ayaa goobta yimid oo soo bandhigay xirfadiisa dagaalka taasoo laba jibaar ka sareysa tii macallinkooda. Ji iyo asxaabtiisa ayuu si fudud uga adkaanayaa. markay bilaa awood noqdeen, Pascal wuxuu diyaar u yahay inuu isticmaalo dhammaan awoodiisa si uu baabiyo dhammaantood. laakiin markaas Na ayaa soo noolaaday kadibna u kacay si uu badbaadiyo saaxiibadiis. si lama filaana Na ayaa wuxuu la soo baxay awood sare si fududna uga adkaanayaa Pascal. muddo kadib Na hadda wuu bogsooday laakiin nasiib darro weli waxba ma xasuusto. filimkuna wuxuu ku dhammaanayaa Bon oo hooyadii u sheegay inuu wiilkeeda yahay isla mar ahaantaana la waayay kadib markay kooxdaasi afduubteen. haddii aad xiisaysid muuqaaladan oo kale fadlan channelka subscribe saaro sidoo kale muuqaalkan like garee si markaa dad badan u gaaro. waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa Ramadaan Kariim.